السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وأنا السلام يا ميل كستو دونك جوجتان ولكن فرحان واye waxaa maanta noo ah bishaaro iyo barwaaqo inaan la joogno walaalkeen bishaar dheere and one of the places kiisa uu businesska ku leeyahay he's the founder and the CEO seasonal global and business fara badan bishaar aad u mahadsantahay meeshaad nagu soo dhaweyso soo dhaw brother aad iyo aad u mahadsantahay and dad badan oo anagu aan ka mid nahay waxaan dhageysanaa dhiirigelintaada intaanaan dhiirigelintaada aysan dadku aysan dhadhansan waxay jecel yihiin inay ogaadaan bishaar iyo bilowgii noloshiisa in yar bal noo sheeg bilowgii noloshaada iyo sidaad usoo bilowday soo dhaw walaalo maasan tahay waxaa sharaf maanta inaan ku casuumay Greenline Villas oo hotelkeeni koobaad ahaa bilowgeygii nolosha iyo maanta meeshan joogo alxamdulilah gaab weyn baa u dhexeeyo waxaana keenay horta ilaahay baa mahad iska leh oo suurtagal ka dhigay noloshayda very humble beginning bay ku bilaabatay si iska like every other Somali family oo kale sida maartay iska humble beginning bay iska ahayd anigoo yar baa markaan iskuulkii I was pride dhalinyarada markaan ku dhex jiray nin waxaan ahaa fahmo badan marka fahmadeedii markaan arkay oo isfiiriyay xoogaha wax walba macalinku dadka baro basic madrasadan dhigan jiray iskuul caadi ma tagin oo islamic madrasada ahayd waxaan dareemay inay meesha aan joogo environmentiga aysan ahayn inay siineen the potential ka maartay igu jiro iyo waxa aaminsan inaan achieve garan karo marka taas waxa ka bilaabatay comfort zone-kayga iyo guriga hooyaday aan joogay alxamdulillah aan ku ladnaa basic cuntadeeda waxaygaan ku heli jiray inaan ka tago mar walbana waa laga hadlaa comfort is the biggest enemy of human potential success mar hadda comfortable tahay oo provided wax walba ugu keena cunto waxa cun lahayd waa wax badan uma baahnid sax waay laakiin markii wax ka dhex guuxayaan always you ask yourself is this enough marka waa ka soo tagay village kira waan ka soo tagay waxaan imaaday Kenya markaan imaaday Nairobi caasimadii ahayd baa imid oo MBI aan dhihi jirnay markaan yareyn ana Nairobi waxay dadka waxay dhihi jireen mar walba wax ugu adag waxa weeyaan ii sheeg waa ma guri la seexdo kirada guriga aad qaali dadka dhihi jireen wax cunto waa helaysaa laakiin meel saxadina ma saaraysid I'll figure it out alxamdulillah waa imid and then waxay ahayd the peak of the internet xilligan imaaday peak of the internet marka waxa ku keenaysaa internet ka sabab kafeeyada markaas soo baxay smartphone iyo waxa ma jirin marka internet cafe baan shaqo ka helay 11 street Ramadan meel ku taalo saaxiibaday dadka isku village kale maanay isla soo wada kornay most of them the biggest dream they could ever had was in Emirates safraan ama dibadda tagaan ee dhoofan which was the biggest thing marka iyada oo maartay wuxuu weynaa jiray ahaa internet cafe aan shaqeer ka helay si waxaan uga helay fudud ilaahay markii nin meesha shaqeynaya safar aaday wuxuu yiri maamadii meesha kale hadii kan Allah yarxamo dhimatay ninkaana booskiisa ka shaqeynaya ana cunug yar oo iska daacad iska aaminaa iska ahaa war u print gareey hebel u fur xirb intii baan ka bilaabay then I start maartay inaan waxaan bartoon ay wax ka faa'iido maartay curious aan ku noqdo marka school ma u helin fursad inaan ku aado that moment because school qiimo lacag uma haynin kira waxa marka loo sheego leeyahay kiradaada ku sii xisaabtan marka schoolkii ma wadina aado laakiin ma jiro qof bin aadan ah yana dadka khaldamin school ma aadan iyo waxbarasho mali cilmi mali way kalta formal education iyo waxa jira wax la kala yiraahdo self education marka aniga waxaan investigate on bartay self education qof bila cilmi horumar adduun gaari kara male you have to figure out mar walba inaad wax barato marka mar walba aan dhaho school waliya ma tagin that doesn't mean cilmi mali cilmiga kan adiga raasato iyo kan schoolka lagu diyaariyo oo organize lagu diyaariyay kaas waay kan lagu diyaariyayna ma looguma talagalin inuu qofka bini'aadamka success gaarsiiyo wuxuu ku diyaarina inaad noqoto 9 to 5 say ku heli kartaa the best job the best corporate job bangi ugu weyn shirkadda ugu weyn UN shaqo gasha hay'ad shaqo gasha safarada gasha that's how they prepare garanayaan laakiin kan kale oo marka adiga aad barato oo self education ka fursadaha waa unlimited marka dadka qofna soo fahmaa la rabaa hadda isku darsata labada warganimo hadda awood weyso isku day mid qaadata muhiim marka aan imaaday internet cafe aan shaqo ka bilaabay then fursado badan oo dhoofan isku dayay to be very honest idea aan lahaa lagu dhoofay rag baa ku dhoofay ani calaf ma ahayn which I'm grateful alhamdulillah dhoofkii ma soo tagalin marka Nairobi soo galay truck baan ku imid because of I could not afford bus kana soo raacay maartay haddana Nairobi markaan 5 sano joogay waxaan dareemay inaan comfort noqdo haddana another comfortable baan noqday waxba everything is provided kireedeeda waxayga telefonkii waxayga kala iska marka 2012 haddana waxaan bilaabay another journey oo Nairobi aan ka tagay safarada South Sudan ma tagay fiisan ka dalbaday rejected by CN
nin baa horta isku baran meesha wuxuu yiri internet cafe xaga furto waxaan aan cirka galaysa waxbaad baad ka samaynaysaa so the second journey Nairobi ka bilowda another truck fizi wali diiday wuxuu igu yiri iska dhaaf truck soo raac ima borderka ka qaadanaysa borderkan sidoo qaatay alxamdulillah aniga $100 wato ba meesha tagay marka the two journeys oo labadaba kii Nairobi iyo kii Juba labadaba wuxuu ka bilowday truck labadaba truck ma ku tagay markaad gurigiina ka soo tagaysay oo aad yaray oo aad Nairobi imaanaysay waxaad ka soo baxday comfort zone saad sheegtay iyadoo hooyo iyo aabbo waxba ku siinay kalsooni levelka inta la eegay wallahi I never dream of this wax noocan ma picture gareen ina maanta aan herka maanta noo shaqeeyo karo waayo waa of human potential ka waa amazing lakin ani all I was looking for was just to get a better opportunity ina family ki provide u sameeyo on wax aan dib ugu celiyo ama wixii aan ka bedeli karan ka bedelo lakin I never had a big dream of this lakin haddana marka arkay inay wixii suurtagal tahay oo arkay bad waxa lan wax walba waa suurtagal waxa ku celinay waa xayndaab walba la gudbi karo markaas baan arkay inaan maartay aan energy badan galiyo sida aan ku gaari lahaa highest level oo fooq kulli cilmi caalim nin walba wax gaaray ama cilmi la min baa kasi koray markii aan isku day meel walba joogin aan double triple aan kor sii socdo until I feel like wixii aad naantii niyadda ku soo dhaco haddii aad energy-geeda decent-geeda aad yeelato iyo akhlaaqdeeda iyo procedure-keeda in la samayn karo in la achieve garan karo waxaad ka hadashay education waa leedahay oo inta buug aad akhrisay iyo waxyaabo badan oo dhageystay aad baan la yaabay si maskaxdaada u dhisantahay laakiin school maada tegin schoolka oo laga yaabo in qofka loo provide gareeyo education la diyaariyay oo laga yaabo wax loo diyaariyay inuu yahay maxaad ku qiyaasi lahayd haddii maanta aqoonta aad leedahay education aad ku darsan lahayd ma potential-kaaga hoos u dhigi lahayd mise kor bay ku qaadi lahayd wallahi ani waxaan aaminsanahay inay kor ii qaadi lahayd oo meeshaan joogo ay kor iga sii qaadi lahayd waayo mar walba dee wax cilmi ka maqan marna ma dhihi kartid waxba iguma soo kordhinayo laakiin waa inaad marka hore horta aad ogaato inaad labada u baahantay inaad kana u baahantay kana u baahantay laakiin se I'm not regretting maanta inaan jaamacad tagin oo aan waxba igama hadlayn inay wax u soo kordhin lahayd bas aaminsanahay laakiin dee ma dhahayo maanta cunugkayga hadda maanta jaamacadda u diro I'm not expecting them inay jaamacaddaas wax ka bedelayso basic educationka iyo communicationka iyo luuqadaha haddaan baro خلاص markaas waxaan investigaraynaya si u baran lahaa wixii passion asagu ku yahay asaga uu rabo kaas marka waa adiga maanta dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa badan oo waxaa jira sidaadoo kale aan waxbarasho helin kuwa badan oo waxbarasho helay haddana aan potential-koodii iyo dadnimadoodii aysan u muuqanin maxaad u malaynaysaa inay ka hortaagan tahay waxaa ka hortaagan nin walba caqabada haysato oo fear of failure wax la yiraahdo jirto qofka cabsi wuxuu ka qabaa inuu fail gareeyo waana impossible human being inuu gaaro heer asagoo kooda fail gareyn waa ilmaha yarka markuu soo baranay uu dhacaya uu kufaya then eventually uu soconaya maaha marka qof walba horta waxaa ku xindaawan fear of failure ama maarata ama ku suurtagal weysaa marka book baan ku arkay meel qoraal qofka bini aadanka oo average human being haddii energy-ga uu geliyo amaad fail garooda haddii uu gelin lahaa trial uu isku day uu gelin lahaa meesha ay gaari lahayn unlimited bay xalay marka qof walba horta cabsi oo fear of failure ku xiran at the same time haddana maanta xilliga la joogo ma jiro qof internet la'aan ama smartphone aan haysan uu yar yahay laakiin se u isticmaalayaan wayaan qofka inuu smartphone-kan iyo internet-kan iyo waxaan la fududeeyay nolosha information age xilliga la joogo waxaa ka nimid civilization wuxuu ka soo bilowday stone age agricultural age soo bilow hadda maanta information age xilliga nolosha oo wixii dhaca in a second ku arkaysid wixii la qoray in a second ku helaysid marka dadka nafsadooda ma maalgeliyaan aniga marka aan nafsadeeda maalgeliyo waxaa su'aasha mar walba isweydiin jiray waxay why some people are more successful than others a $1 billion question why some people live better life than others then waxaan noqotay inaan marka su'aasha ayada aan ka jawaabi waayo then waxaan dareemay in nolosheeda maartay is not rehearsal for something else qof imaanaya ma jiro no one was coming to the rescue then waxaan ogaaday end of the day you on your own adiga versus you qof u badan maanta competition kan nolosha kula jirto waa adiga ma aha the next guy you cousin your friend who went to the US ma waa adigana competition ka isku lagal marka internetka iyo telefoonka smartphone-ka saa wadato cilmi wax walba ku fikirto ka heli kartaa laakiin haddaa isticmaasho TikTok entertainment iyo just joke iska qosol iyo heestan daawo iyo video iyo Netflix adiga choice-kaada waa haddii aad isticmaashana cilmi ku raadaysan waa adiga qof walba wuxuu ogolyahay isweelin bil walba inuu bixiyo $10 ama ka badan for Netflix laakiin hal qof ma jiro nafsadiisa ismaal gelinayo audio book inta iibsado buugaagta online ka iibsado courses online ka iibsado
international conferences oo maaragtay networking aku sameynaysid dadka most successful people human being ay tag imaanayaan aad ku helaysid ani sometimes conference waxaan bixiyaa VIP tickets hatta hadaan awoodin waxaan isku day jiray markaan bilowga inaan bixiyo $4,000-5,000 VIP front in first why you get to meet the people who inspire you dadka mar walba inspiration ku siiyo oo mar walba noloshaada oo aragtay inay successful ka yihiin marka adduunyada aakhiradaana dad baa successful ku is inspiration adduunkana dad baa kuwa marka dadka ayaga haddaad email u dirta ama wacd ma helaysid laakiin conference haddaad tagtay you get the opportunity to ask them question how you did it marka dadka ma nafsada isma maalgeliyaan haddii qofkii awoodina dee you have to start from scratch haddaad ismaalgelin karin awoodin telefoonkan yarka oo isticmaal inuu yahay aalad adiga wax kugu tarto ma ahayn aalad adiga wax kaa qaada aan ahayn marka I think that's the biggest reason. That's very good. waxaad ka hadashay sida dhalinyaradu ay ugu mashquulsan yihiin oo waqtigooda ugu luminayaan aaladahan sida TikTok iyo lamidka waxaan kaloo dhageystay adoo ka hadlaya dhalinyaro badan oo aniga laftiga arko meeshan hadda quruxda badan oo adiga leedahay kale dad kale leeyihiin inta taga picture galaya habeenkii oo dhan hurda marka meesha dhalinyaradu ay uga faa'iideysan lahaayeen technology-yadii iyo informational age-kii waxaad moodaa inay uga faa'iideysanayaan in noloshoodii iyo potential-koodii ay ku dumiyaan waa saas miya pointiga waxa weeyaan UK 2014 waxaa u tahay conference 2014 yeah waa the very beginning of dibadda markaas big deal bay actually conference waxaan kula kulmay nin billionaire oo successful ah oday gooni oo la fariistay coffee break so laba soo ladba waxaan ku weydiiyay waxaan ku yiri I'm fresh nin hadda nolosh bilaabaya ahay I have a big dreams I didn't make it yet marka waxaan ka rabaa inaad tala isiiso wuxuu yiri hal baa ayuu diisay laban ku siinay number 1 wuxuu yiri never lie to yourself qof kasta been u sheegi kartaa waa possible bina hooyada inta been u sheegto ay ku dhaafto marka ilaahay wuxuu yiri waxa jirto laba man made rules iyo God made rules wuxuu yiri kan man made wuxuu yiri you may or you may not get cut ma wuxuu yiri kan traffic laws ko kale ama traffic ko arkaa ma ku arkaa laakiin God made hadii aad bridge garaysid oo jibisid ma is impossible inaad badbaado waxa kamid ah inaad nafsadaada been u sheegtid wuxuu yiri dad hooyada been u sheegtay maanta laga yaabo inay ku shaqayso u martabo which is not necessarily laakiin if you lie to yourself adiga been wax nolol khiyaali ah iyo program khiyaali iyo shaqo khiyaali iyo lifestyle khiyaali ku nooshaa de mar walba adiga baa nafsadaada been u sheegay ma cid kale badbaadinaysa marka wuxuu yiri number 1 horta adiga be honest to yourself waxa qaban kartaa waxa qaban karina qaban marka dhalinyarada maanta social media soo galaya reels buu galaya waxa arkay reels qurux badan oo mid uu soo galaya million views ama you name it marka qofka ma ogo qofka inuu meesha soo galiyay qofka waa maybe influencer that's what he does for living he's selling that to you and he's being paid by companies and waa shaqadiisa laakiin adiga ina qofka reelka uu soo galiyay dadka kala tusto ehelkaada qaraabada asxaabta tusto noloshina ayna honestly adaka ahayn oo nolosha ku nooshaa we both know aad soo kacdo 12 pm soo kacdo duurkii habeenkii dhanaad Netflix ama soo jeeday then adiga been isu sheegay de qof been isu sheegay asaga marka what do you expect from them you xushmad u haya adiga nafsadaada been isu sheegay so marka hore be honest yourself meesha aad tagayso si fiican aad u tagayso wax ka soo raaxayso waqti ku qaado cuntadaada ka cun laakiin meel walba soo bul taagan yahay he's trying to lie to himself dadka kalena uu tuso inuu meel qurux badan joogo laakiin end of the day qofkii uu soo yahay reality you cannot even afford credit marka inaad nolol aad u liidato oo maartay qofkii uu asagana la degayso waqti inuu ku socdo time is moving lagana yaabo adiga bashaar oo kale inuu ku dacaydeenayo oo kugu mashquulsan yahay asagoo naftiisa inuu sheego of course he's telling me waxyaabaha ay khaldan oo dhan ani waxay khaldan oo waarta laakiin ta'muru an-nas bil birri wa tansawna anfusakum adiga wax ka khaldan ma aragti yaa ku sheegay marka that's why we have to get in the voice u helno people like us that know anagana we're not perfect every human being qaladkiisa uu leeyahay at the same time waxa bulshada dilay waa inaan ka hadalno majority of bulshada maanta qof walba inuu influencer noqdo why do you have to be influencer fursado kala jira shaqooyin kala jira wax walba rizqi ilaahay u banaanka dhigay hal wal waraadinaysa why do you have to be influencer million views qof la ku arkaysa TikTok tusalahan ama million followers lakin he doesn't produce any quality content waxan ma la yani ka hayn markaas weydis waxa leedahay what do you stand for what is your values marka jawaab karo qofki aad bay adagta runta waxa kale oo ka hadashay dhaqaalaha laba meelood baa laga soo saaraa waxa laga soo saaraa muruqa iyo waxa laga soo saaraa maskaxda in badan oo dadkeena kamida anoon eedeynin iskuulada waxa loo diyaariyay dhaqaalaha in muruqa laga soo saaro inuu qofku fakirin uusan ka fakirin boxka dibadda boxka uusan ka fakirin outside box uusan ka fakirin sidee dadka ugu sheegi lahayd war dhaqaalo waxaad ku samayn kartaa waxa laga yaabaa inaad seminarkaas ku aadeen $1,000 laakiin qofkii muruqiisa ku shaqeeya $200 buu soo suurtagal ma uu heeman karo see markuu qofku dhaqaalo maskaxda uga soo saari karo
horta shirka asaga labada erayon ka bartay ninkii taas wuxuu yiri never lie to yourself tii labaad baan ka ilaa wuxuu yiri your network is your net worth wuxuu yiri inaad $1 billion hagaajiso waa suurtagal inaad zero noqoto waa suurtagal like when you invest your network waa very easy inaad soo recover garayso start from fresh and come up marka wuxuu yiri mar walba network-kaada invest garaya your network is your net worth dhaqaalaha marka sal lagu soo raaco maanta asan ku sheegay waxaan ka imaanay civilizationka the last 3 decades dramatic shift baan sameynay isbedel fara badan oo xagga technology-da information age-ka marka soddonki sano la soo dhaafay 3 decade waxa laga gudbay man power to mind power maxaa weeyaan hadda 75 ama 80 bal waxa la dhihi karaa maanta civil society-gana dhinac kasta hadaan waxay ku shaqeeyaan maanta waa mind power kida iska dareemka waa labor kuma dadku ku haray maxaa keenaya waxa keenaya technology-dii wixii adiga bahalka u isticmaalaysa entertainment-iga asaga is making money out of it coffee shop uu fadhiyaa that guy coffee shop free laptop he's managing multi-billion-dollar company or providing projects and such like waayo waa dedicated waa discipline he knows what he wants mind power marka la yiraahdo adina mind power baa tahayo ninkaas baarata nolosha uu soo galay markuu holiday aado inaad every day aydo fake ku noolaato marka gaab ku dhaxay marka fursadihii online-ka ku jiray si walba lacag u sameyn kartaa wax walba oo waqti galis eeg ma dhacdo suurtagal ba noqoto qof ruux haween ama dumar ama rag ma jiro oo inta maaragtay waqti geliyo wax marka idea bila kuwa idea business-ka ama business sameeyo ama xataa wax barto expertise dhakhtarnimo waxtaad noqoto waqti inta geliyay discipline geliyay dedication geliyay system u sameeyay honest ah oo dadka ilaahay islaamka ilaahay xooloodan iska ilaaliyo kiisana iska ilaaliyo oo ma jiro wali inta wax bilaabay aan successful ku noqday university ilaahay wuxuu sameeyay very given ilaahay wixii maartay energy la galiyo bixiya laakiin de haddaad shortcut rabto oo procedure ka inaa marin oo maanta dhanbeen u sheegaysid oo kan khiyaanaysi kan dhacaysi kan balxadaysi it's impossible laakiin haddii intaas dedication energy honest hard work intaas soo geyso waa impossible in fail garoodo marka mind power kana waad san ku sheegay ninkaas dhalinyarada halkaas fadhiyo he's managing multi-billion t-shirt yar biskota hadaba gaab biskota dura ama chat israel jeans biskota laakiin adiga maxaa rabtaa markuu holiday aado oo shaqadiisa ka nasanayo nolosha saxda genuine-ka ku nool yahay bartana figures it is impossible marka mind power-ka dadka maanta haye muruqmaal haddaad tahay dee maanta labor baa qabanaysaa you get paid for the saacadda ku shaqaysa ama maalinta ku shaqaysa and you go home laakiin mind power markaad tahay everybody else baad isticmaali kartaa the work for you waxaan ka hadlaynaa waa OPT other people's time dadka kale intaad company hagaajisid oo shaqo siisid dadka ayaga laborka baa system u sameyn kartaa mid walba markii caqli laho ilaahay tuso fursadda mar walba uu ka dhex bixiyo you start creating his own laakiin eventually dadka ayaga fursadda inay abuurtada laga rabaa adina fursadda abuurto ku shaqaysta ayana aad ka shaqaysato waagii hore dadku booyada iyo dameeray biyaha ku soo dhaansan jireen laakiin hadda waxay ku soo dhaansadaan biyo lama doono tubada laga shubtaa soo waxaad leedahay dadna dhaqaalihii tubada uga soo dhacaya dadna booyad iyo dhabar biyo ku dhaansanay marka waxay ku kala duwan yihiin maskaxda iyo man power muruqmaal iyo maskax maal marka waxaan u baahanaa dhalinyaradeenu inay fahmaan intay nolol fake ku noolaan lahaayeen inay ku noolaan lahaadaan nolol reality oo ay dhaqaale ka sameyn karaan oo fiican tusaalana ay ku daydaan intay dacaydeen lahayn qofka walaalkood because qof perfect ah ma jiro ayay ku daydaan taasad leedahay of course waa arrin fiican hada kale ani inaad dacaydebo maxaa ka liidato intaad qof profilekii soo gashay ama aad meel kaga hatay ku xamatay waqti aad gelisay aad ku cayday adigana og tahay million times in qofka ka liidato maxaa ka liidato oo inta energy waqti aad gelisay meeshiisa aad tagtay waqtiga asaga ama wax ku qabsatay adigu anfacayo because end of the day qofkaas inuu fiirin ama waqti u helin ama he doesn't care because end of the day you don't get marati approval ka qof walba binaadinka qof walba ma qancin kartid waxaa nin hadal nasi oo nasi u qaaday wax ka soo dhahda nin baqalad arko sax darahado kale video aan ka hadlay aan lahaa laasano dagaal ka dhacay Soomaaliland alqaatil maqtuul wax isku dilayaan ma yaqaanaan the main picture nin baa intuu soo xulay waa khaldan tahay dad baa lagu soo duulay guriga lagu soo duulay yes waa sax laakiin the main picture Soomaaliya hadaan waxa isku dilaynaa ama laasanood ka soo qaad ama xamar tag ama ka soo qaad hal qof oo si daacad uga jawaab kara ma jira within 1 minute waxa isku haysano ma jiro nobody can explain warniyo maxaad ku haystaan ninkan ma sixi karo marka alqaatil maqtuul xilli waxa marayna wax isku dilayaan aysan garnayn asagoo intaas ka xanaaqay marka qof walba ma qancin kartid aan you don't care just ignore it isaga sii soco maadaama dadku aysan rabin inay maskax maal noqdaan waxaad ka hadashay oo aanu aad u garanaynaa waxa la yiraahdo shortcut qof walba wuxuu rabaa noloshii inuu shortcut ku helo noloshu shortcut ma jirto
waxaad shaqaysaa dadka adigoo kale oo successful ka ah saacada aad iyo aad u fara badan oo maalin 16 hours 16 hours qofkii dhalinyarada wuxuu rabaa inuu soo kaco sidee noloshaas balance u noqon kartaa absolutely it's impossible anoo 16 hours shaqeeya makhaayad aan fadhiyo on meeting ku leh baad inta imaadartan soo inta ku qashaa dadka dhahdaa this is my lifestyle kii waa kana I afford this I stay here intaan deganaha ma aan imaada marka dadkii kale waa marin habaabinaysa oo ka dambeeyay role model ka wahayd ama baadiyaha jooga ama tuulada joogay adigina waa marin habaabinaysa marka the university waa tan ku sheegay waa very given adoo shaqeey 2 saacadood ama 3 saacadood ama shaqeyn yaano 16 hours shaqeey ilaahay isku waxna ma siina sax waa ilaahay wuxuu ku raani bari fadcuukum fadcuni astajib lakum ilaahay bari tala saaro shaqeysa laakiin ilaahay banaanka intuu roob cir ka soo daay lacag kuma soo tuuray ama xoolo kuma soo tuuray shaqeyso ilaahay ku provide wuxuu ku tusi wadooyinka shortcut laakiin marka adiga aad waxba raadinayn akhiradan dadka uma anficin adduunkana uma anficin si kastoo marka dhalinyarada wax loogu sheego qofku asaga laga rabaa fadhiga inuu ka kaco oo dareen yeesho inuu dareemo maxaad u malaynaysaa qofka dhalinyarada ah oo Soomaaliga oo damiir kale oo maybe message-kaaga hadda koor u soo gaarin inaad u sheegi karto war fadhiga ka kac 2003 sidaad hore uga hadashay $1 million inaad samayso way fududa maxaad message aanu siin kartaa ay message-gaasina waxa weeyaan maanta waa hadli karnaa beautiful conversation waxaan karnaa oo ka hadli karnaa waxaan u dhan laakiin waxba ma tarayo haddii wixii qofka uu ka faa'iideysanayn cid lacag laguma siinayso waqtiga aniga haddaan hayo telefoonkii waa gadiyey shaqa ay taalo adiga shaqa ku taalo laakiin waxaan isku dayaynaa social corporate responsibility na saaran qof walba oo Soomaali ah ama qof walba oo dhalinyaro ah ka saaran community-giisa inaan bal dib u celino waayo hadda xoolaha hadda kastoo samayso it doesn't matter how much amount you make it dadka inta direct impact kuma samayn kartid laakiin marka codkaada soo dhaaniyo this is how I made it because of dadkii naga horeeyay successful ka ama ganacsadeena ama dadka role model kan dhan hebel taajir baa saan u ahaa ama millionaire baa ama successful baa ma ka hadlaan waayo they don't care nin walba tiisu ku mashquulsan yahay tiisa gabadhu kala ma kalkaliya laakiin my own time daily life oo shaqadeedii wixii lagu mashquul badana inta waqti aan ka soo saaray I give you opportunity aan wax ku sheegay haddaad ka qaadan wayso horta taas ani ayaan dareeyay adina ayaan dareey ku tahay waayo wixii waad aragtay everything waan ku sheegay cheat code kan ku siiyay cheat code waxa weeyaan waa furihii aad ka wayso kuwa anaga noo horeeyay ay ku sheegin marka haddii talada waxa muhiimka ah inta waxa laga yaabaa video inuu gaaro ugu yaraan million ama thousands halka qof oo maataska oo muhiimka videos ka waa halka qofka oo video isaga impact direct ku yeelatay ama waxyeeleen toos ku yeelatay oo noloshiisa inta action qaatay wax ka bedelay ama noloshiisa wax ka bedelay halka qofka oo noo xisaabsan anaga waa kaas laakiin qofka iska dhageystay oo inta u dhageystay okay this emotional this inspirational qofkaas doesn't matter action kana galada waxay dhahan action speak louder than words marka talada aan ku siinayno qaado adeeg ku anfacaysaa anagana dadka wax ku sheegno waxaan nahay because why meel baan ku arkay code ku qornaa you don't live like a legendary until you do something for someone who will never repay you back wow that's very true si umaada noo geesinimo ama sharaf umaada noolaan ilaa aad qabatay ama aad ku tartay qof bini aadan ah oo abaalka asaga aan ku gudi karin abaalka aan ku sheegayno waxa weeyaan walaalow successful ilaahay waa iga dhigay anoo ka dhigay wadadana ii shaqaysay raac 99% successful human being kana u shaqaynaysaa wadadaan raac ku shaqaynaysaa fadhiga ka kac marka kii action u qaatana de waka waa very black and white ilaahay university soo hagaaji waa given kii aan qaadanna hade waa just was nasiibkiis waxyaabaha oo aniga aan kaaga mahadcelinayo dad badan ay kaaga mahadcelinayo waxa waaye dad badan oo waxaa jira very successful adigoo kala oo aan laga yaabo inuusan qof bilo aadana ama qofna uusan minute siinin adigana waxaad soo gelaysaa message fara badan oo inspiring oo motivational oo dadka aad ku dhiirigelinayso and that's waxa ay responsibility-ga ay tahay qofku inuu wadadii dadka walaalihiisa soo aadan kaaga mahadcelinayna shukran soo dhawaad brother ugu dambeyn qof kasta waxbuu ka tagaa legacy buu ka tagaa maxaa rabtaa in lagu xasuusto waa very simple maanta kaba soo qaad billionaire inaan noqday ilaahay waxa kuma agtiisa waana u dhowdaa waxba badan ma jirto dreamkeedana waan leeyahay waxba badan ma jirto qolada xashurteeda way soo raacday billion wali ma gaaray mana ku dhawiye habad billion Kenya dollar ka hadlayna kaba soo qaad billion hagaaji tusaalahan for example billion-ka haddii bari maanta accident ku dhinto ama the next flight ku dhimo wax ku dhimato yaa qaadanayo ehelkaadii qaraabadaadii xaaskaadii carruurtaadii ayaga hadday ku dagaalamaysa sharaf ku dhamaystaan waa raganimay leeyahay so wax walba material oo hagaajisay it doesn't matter maadaama marka material kastoo amount kas billion ha gaaro ama million ha noqdo ama kun ha noqdo waxba macno lahayn oo maanta dee markaa ka tagtaa saas iska dhamaanay hadalkiisa piga papaska ka weyn oo ilaahay kugu abuuray maxay tahay
mas-uuliyad baa naftaada kaa saaran ehelkaada kaa saaran charity started at home dadkaada ehelkaada waa qasab inaad wax ku tarto laakiinse communitygaadi iyo dadkaada iyo dhalinyarada role modelka aan lahayn waayo dhalinyarada maanta wax dilay ugu badan waxa weeye role model waxa waa Cardi B iyo Drake iyo you name it musicianka iyo dadkaan iyo waxaan aad arkaysid laakiin dhalinyarada role model communitygooda ka imaaday markay helaan ay ku daydaan oo dhawarniyo I did it waxaan ka hadlay waa reality ma aha stories saana u sameeyay wadada mar way ka qurux badan tahay markii qof kale u sheegayo luqad qalaad kula hadlay marka pointiga aniga aan rabo inaan ka tago waxa weeyaan xoolo kastoo maanta sameeyso ama qof walba successful maanta uu sameeyay waa ka tagaysaa maanta laakiinse isweydii maxaa ka weyn xoolo ood achieve garayn kartaa oo samayn kartaa a lot of people waxay dhahaan why do you have to speak about this maxaa ka qosay what are you getting out of it waxaan dhahaa what I'm getting out of it is xoolo kastoo sameeya nolol kasto daraadna homeless baan ahaa waan kaa sheekayay markaan soo maray one of the village Mandera waan kaa iloobay homeless baan masaajidkan seexan jiray barandadiis inta Nairobi soo gaadhin hal san dhamma ku hasal garaynay shalay anoo homeless ahaa haddana maanta aan ahay alxamdulillah noloshaan ku noolahay I travel the whole world 63 wadan aan tagay 63 wadan I literally stay every hotel in the world shirar badan dad badan aan la kulmay gaal iyo muslim dad maanta bulshooyinkooda ka dhex muuqdaan la kulmay haddana I choose to be inaan aamusin waayo waxaan aaminsanay ilaahay inuu karaamo cod igu siiyey iyo story iyo journey aan dadkii kaga sheekeyn karo haddana marka la aamuso yaa hadlaay marka waxaan rabaa inaan ka tago a legacy iyo dad fara badan oona i garanayn maxaa dad sorry inaan message uga tago ama asxaan aan u sameeyo that they can never repay me back wuxuu yidhi you never live like a legendary until you do something for someone who will never repay you back marka waxaan rabaa dadka dhalinyarada maanta daawanayo oon i garanayn ama aan garanayn inaan uga tago fursad ama sadaqa jaariye ah oo intaan markaan dhintay igu soo duceeyaan adduunkana sharaf aa u tagtay waari maysid wara ka hara aakhirana aad ilaahay uga heshtay ajir subxaarta message inaad noloshaada uga tagto oo u sheegto adigoo homeless ah adoo cidii hooyo aaba ka soo tagay adoo homelessna family ima qasbin ana doortay ka soo tagtay waxaad soo socotay journey-gaaga inaad Nairobi aad ama wadadaadii muddadaas waxaad noqotay homeless Nairobi for a whole year marka Nairobi maadana fas waxa ugu horeysan maxaa istaal waxaan tay Kenyatta Hospital I was too skinny atasdan bana waxaan ku riga bara TB because ma aaminsaneen inaan healthy ahay meesha aan gaaray malnutrition والله العظيم markay ugu dhahaan waxa ma qabtid adiga fayb hata baahiba hasan ku yeeshay I think inaa waxa ku soo dirdana waxa in fact 2008 ka waxa marka alxamdulillah waxa iri war hada caafimaad qabo waxaan baahi waa laga baxaniyo ani marka nolosha oo ama sheekada aad ka sheekaysay waxaan u arkaa inay noqonayso legacy ajiib ah ama message ajiib ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed dhaafay because qof kasto excuse qaba ama dhahay saas ma haysto ama saas ma haysto waxaad u noqonaysaa inta noolnahay iyo gadaalba inuu qofku dhaho hadduu walaalkay sameeyaan baa sameyn karaa excuse kaada waa in waxa jirta waa your faith has to be bigger than your fear excuse absi baa keenayso absi adiga fearless noqo faith kaada mar walba iimaanka ilaahay ku qabto adiga isku qabto waxa ka weynaada mar walba absidaada marka taas hadii sameeyso waxaad qof walba waxa noqon kartaa successful isku day marka successful noqotana oo million kaashana inaad humble noqoto waayo dadka marka xoogaa yar soo xoolaha dabaqadii hoos ka soo tago kursoo yiraahdo kibir iyo isla weynin iyo dadku isla weynaada ku dhacayo marka taas wax ma tarto macna quality malihid lacag ka soo haysato wax quality malihid nabi sallallahu alayhi wasallam marka walba laga sheekeynay ama dadkii asxaabadii dadkii saalixiinta ah waxa looga hadlaa inay dad humble ahaayeen ay xoolo haysteen marka adoo dadkii kan xoolo badan ka fursado badan ka opportunity badan haddana aad down to earth aad hoos la soo fariisato aad dirinta halkaas kula fariisato oo waqti siiso way ka qurux baantay give aday ku sinaysaa qurux iyo sharaf you feel like kana waa gaaray and I choose to be humble qoraal waxa jira meel aan ku arkay dhahay being humble will take you place money won inaad humble noqoto xog geynaysa meel aan lacag ku geyn karin marka be humble adoo ilaahay xoolo ku siiyo xoolahaas dadku ma gaari kartaa codkaada ku gaari kartaa legacy ka weyn material ka tag marka waxaan u dagaalamay oo hadlayo intaan energy u gelinayo waxa weyn aan ka tago legacy ka weyn xoolahaas waayo xoolahaas dadku ma wada gaari karo codkii ku gaari karaya niyo aad kaaga abshir garanaya thank you very much